bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan qodobada wararka Soomaalida iyo caalamka ugu waaweyn xilliganna waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo si dadban u weeraray mucaaradka shaaciyayna in dalka xaalad dagaal uu ku jiro sababta keentay in xeerlaaliyihii qaranka Axmed Cali Daahir xilka looga qaado oo aan ogaanay beesha xeerlaaliyihii xilka laga qaaday oo si kulul uga jawaabtay iyo midka cusub beesha uu ka soo jeedo oo mahadnaq soo dirtay jenaraal cabdalla oo haadaan inay ku sii dhacaysa sheegay dacwadda badda isla markaana ceerintii xeerlaaliye Axmed Cali Daahir ay macno kala abuurtay 12 cisho kadib heshiiskii ka dhacay magaalada Nairobi xogada Hasoon ayaan idin la wadaagi doonaa nabad sugidda Soomaaliya war ay ka soo saartay is-hortaagii saacado ka hor lagu sameeyay xildhibaan Dalays Xasan Aadan oo u duulay lahayd degmo ka tirsan gobolka Gedo مسؤول كترسن دولة فدرالك الصومالية ومر كلا باسينك كسي شبي حسردي شيخ أمال يودادك شيخ عبد القادر سومو صومالية وسيدي 20 سنة كدب كبيرتي ورور لدغا لما حيوان دينة إسلام كبانيسي إن لعني كرو عمر رئيس الوزراء حسن علي غير ودول لغي قار كميد قوليه سوى سيرده نحو كساب سيها يا مركز بنتلان وحي حيراد كسوركتي جاديد عبد البليال oo nooca dagaalka oo markab ka soo dejiyay dekada Boosaaso baabuurtaas warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay halka loo waday qodobka dibadda ugu muhiimsan ee daawan doontaan hadduu Ilaahay raalli ka noqdana waxa uu yahay qarax laba qof ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka Pakistan u diyaar garooba wararkaas oo faahfaahsan waxaad nagala socotaan shabakada wararka maanta waa subax talaado ah taariikhda ay ku beegan tahay 26 bisha 12 November 2019 warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay xaalad dagaal uu wadanka ku jiro isla markaana sheegay in loo baahan yahay in laga qayb qaato dagaalka lala gelayo dhinacyada dawladda ka soo horjeeda waxa uu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in ay dagaalkaas ku gacan siiyeen dawladda federaalka si maldahanayuna madaxweynaha uga hadlay xitaa mucaaradka dawladdiisa shakhsiyaadka ku ah in dagaalkaas ay kula jirto sidaas ay tahana waxa uu ka dalbaday in lagu caawiyo inaad ogaataan dalka dagaal inuu ku jiro aad ku baraarugsanaataan sidii dagaalkaas aan uga adkaan lahayn cadawgeena waa shabaab waa xaqiiqa cadawyo kalena waa iska jiraan Soomaaliya aan doonin inay istaagto sabab badan awgeed waa tana annagoo dib ku jirna yaa waxaad ka fikiraysaan innovation inaad xurisaan ganacsatadii waa maal gelinayaan meel laga heli karo mar intaas marka haddii lagu daro dowlad adag iyo dowlad wanaag iyo stability lagu daro waxaad garanaysaa inaan dad badan noo arki karaan khatar noo arki karaan hadalkan ayuu ka jeediyey madaxweyne Farmaajo kulan uu la qaatay qaar ka mid ah xubno dhawaan shir ku qabtay magaalada Muqdisho oo dad badan ay ka soo qayb galeen Farmaajo ayaa waxa uu siyaasad ahaan hadda culaysyo ka wajahaya madasha xisbiyada qaran iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur kuwaas oo laf dhuun gashay ku ahaa 3 sano ee xukunka wadanka uu isaga soo hogaaminayay waa hagaag xeerlaaliyihii guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir ayaa saacado ka hor xilka laga xayuubiyay waxaana xilkaas la sheegay in loo magacaabay Saleebaan Maxamed Maxamuud madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana u gartay garyaqaan Suleymaan Maxamuud oo beesha majeerteen ka soo jeeda in uu xilkaas qabto waa nin dhalinyaro ah sida la sheegay ka soo shaqeeyay meelo kala duwan ilaa heerka PhD ayuu ka gaaray ka hor Axmed Cali Daahir inta aan xilka laga xayuubin gelinkii dambe ee shalay waxa la sheegay in ismaandhaaf uu ka yimid kana hor yimid sida la sheegay inuu qoro warqad lagu soo xiri lahaa wadaadka dariiqada suufiyada ku jira ee Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Soomow xeerlaaliyaha ayaana ka biidiiday qorshahaas oo ay wateen ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo agaasimaha nabad sugidda Fahad Yaasiin waxa lagu eedeeyay Cabdulqaadir Soomow inuu qalqal amni oo horseedi karay kacdoon shacab uu ka dambeeyay sidaas ay tahana xeerlaaliyaha waa uu diiday wuxuu sheegay Axmed Cali Daahir haddii la soo xiro Cabdulqaadir Soomow in ay suurtagal tahay midda hadda laga baqanayo mid ka weyn inay dhacdo oo dawladana sidaas inqilaab lagu sameeyo wax yar kadib madaxweyne Farmaajo ayaa garwaaqsaday in xilka laga xayuubiyo kadib amar diidada uu sameeyay xeerlaaliye Axmed Cali Daahir waxaana loo sababeynaya
sida la sheegay xilka qaadistaas in uu diiday waaranka ama warqadda lagu soo xiri lahaa cabdulqaadir soomow in uu isaga qoro warar kale ayaa sheegaya in khilaaf hoose uu kala dhexeeyey axmed cali daahir garyaqaan baashe maxamed yuusuf oo ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka sida ku caddeyd digreetada lagu magacaabay xeer ilaaliyaha cusub waxaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu soo jeedin u soo gudbiyey garyaqaan baashe taasoo sabab ka dhigtay in xilka laga xayoobiyo doctor axmed cali daahir xeer ilaaliyaha xilka laga qaaday ayaa ka soo jeeda beesha dir gaar ahaan jufada surre waxaana midka cusub uu ka soo jeeda beesha daarood gaar ahaan majeerteen wuxuu ku dhashay gobolka mudug waa hagaag qaybaha hore ayaa daawanaysaan shabakadda wararka maanta war ka soo baxay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliya ayaa beenisay in xildhibaan dalays xasan aadan oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ka hor istaageen inay ka dhoofto garoonka diyaaradaha muqdisho haddaba aynu dhegaysanno xildhibaan dalays xasan aadan saacado kadib markii is-hortaagga lagu sameeyey cidda u diiday inay ka dhoofto garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho walaalow ma garan kara aniga naftarkayga safarka waxaa laiga joojiyey ma garan kara aniga deegaan doorashadeeda u socday degmada luuq mana garanaayo waxaa laiga joojiyey inaan safarkaas inaan baxo hay-adda nabad sugidda may wax sababa ii sheegeen midis inaanan bixi karin oo keliya ayay ii sheegeen may way taagan tahay caqabadeedu way taagan ayagaan jawaab ka sugeynaa ma raba inaan ka hor dhaco marka jawaabaan ka sugeynaa insha allah waa ka hadlay arrintaas gudoonkana waan u sheegay marka jawaabta ayagayba ishaa iyadoo sidaas ay sheegayso aad maqlayseen in ciidamada nabad sugidda ay u diideen ayaa haddana xildhibaanka waxa hay-adda nabad sugiddu ay sheegtay in aysan jirin is-hortaag iyagu ay ku sameeyeen hal qof oo ka tirsan niisa lama uusan hadlin maalmahan wax kasta oo dhacaba niise ayaa lagu eedeeya ayuu yidhi sargaal u hadlay hay-adda sirdoonka ee soomaaliya hay-adda ayaa sargaal sare oo ka tirsan waxa uu sheegay inuusan jirin wax amar ah oo hay-adda u gudbisay maamulka garoonka oo ay ku hor istaageen xildhibaan dalays ilaa hadda lama oga arrintan iyo weliba halka amarkaas laga siiyey maamulka garoonka ee lagu hor istaagay xildhibaan dalays xasan aadan kadib xilka qaadistii lagu sameeyey xeer ilaaliyihii qaranka soomaaliya doctor axmed cali daahir waxa uu ka mid ahaa lafdhabarka u taagnaa dacwadda iyo inay soomaaliya guul ka gaarto dhanka badda ee muranka kala dhexeeya dalka kenya warar ayaa sheegaya in xogta uu hayay dowladda ay ka faa'iidaysan kari weysay inta laga gaaraya go'aanka maxkamaddana ay ahayd in xilkaas loo kaadiyo garyaqaan sulaymaan maxamed ayaa lagu bedelay oo laga dhigay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya agaasime ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda soomaaliya jenaraal cabdalla ayaa sheegay in muhiimaddu tahay in dowladda madaxweyne farmaajo hogaamiyo haadaan ay ku sii ridayso arrinta badda soomaaliya waxa uu cabdalla sheegay in hore ay kaga tanaasushay dowladda hadda jirta dacwadda kiiskeeda oo laga soo wareejinayo maxkamadda i c j ee dalka holland dad badan ayaa rumaysan waxa isku soo beegay in muna sharma oo bishii oktoobar dowladdu ay sheegtay in shaqada qareennimo ay ka tagtay xeer ilaaliyihii qaranka oo shaqada laga ceeriyey sida ay ku dambayn doontana waxaa la leeyahay waa arrin aad looga walwal qabo waxa uu cabdalla sheegay in tiir muhiim u ahaa kiiska difaaca badda ay soomaalidu weysay waxaana uu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo mid uu ka tanaasulay wuxuu ku beddeshay baarlamaankana ha weydiiyeen ayuu yidhi arrinta heshiiskii kenya ee ku dhex maray 14 bishan 12 cisho ka hor gebagabada ayaan isla soo gaarnay daawadayaal wasiirka beeraha soomaaliya siciid xuseen ciid iyo agaasimaha guud ee ururka bariga afrika ee la dagaalanka ayaxa stephen njoga ayaa magaalada muqdisho ku saxiixday heshiis ay soomaaliya 28 sano kadib mar kale uga mid noqonayso ururka bariga afrika ee la dagaalanka ayaxa xasharaadkan ayaa diinta islaamka ay ogoshahay in la cuni karo oo ay fasaxday xalaalna yahay waxaana munaasabadaas oo ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali kheyre goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka guddiga beeraha ee xildhibaanada golaha shacabka wakiilo ka kala socday hay-adda cuntada adduunka ee w f b iyo qaybteeda faw waxaana ay soomaaliya sheegtay in 9 waddan oo ay soomaaliya ka mid tahay ay qayb ka yihiin ururkan la dagaalanka ayaxa oo la aasaasay 1962 ayna ku faraxsan tahay soomaaliya mar kale inay ku biirto shabakadda wararka maanta ayaa ogaatay warar lagu kalsoon yahay oo sheegaya in lagu xayiray gaadiid nooca dagaalka ah dekedda magaalada boosaaso
markab ayaana la sheegay in uu dekedda ka soo dejiyey. lama carabaabin tiradooda gaadiidka nooca cabdibilayaasha loo yaqaano, iyadoo sidoo kale aan la ogeyn dalka laga soo dhiibay. amarka dekedda in laga soo saarin gaadiidkan waxaa bixiyey wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed galan, waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan halka loo waday. ilo madax bannaan ayaa sheegaya in guddoomiyihii xilka laga tuuray ee baarlamaanka puntland cabdilxakiim maxamed axmed dhoobo daareed ay ku socdeen sida la sheegay gaadiidkani. waxaa sidaasi la mid ah aan la ogaan karin in beesha cali saleybaan ee ku xoogan gobolka bari ay gaadiidkan u socdeen, waxaana xiisad ka taagan arrintan ay weli ka taagan tahay sida la sheegay magaalada boosaaso. soomaaliya waxaa saaran cunaqabatayn, haddana puntland doonyo iyo maraakiib ayaa hub lagu geeyaa si suuq madowna lagu iibiyaa sida dadka qaarkood ay xaqiijiyeen. qodobka dibadda intaanu aadin aan ka horumariyay mar kale ayaa waxaa mas-uul ka tirsan dowladda federaalka uu baasiinka ku sii shubay dagaalka diimeed ee dhowaan ka dhex qarxay kooxda al-ictisaam iyo weliba dariiqada suufida. laba wadaad oo midna inuu waddada mare loo diiday, midka kalena inuu muxaadaro qabto laga horyimi, sida ay dowladda ula kala dhaqantay waa kaaf iyo kala dheeri. sheekh soomow toddobaadii ka hor waddada ayaa askar ka celisay, kaarkaada lag ayaa lagu yidhi oo nin taliyo ah ayaa sidaas yidhi. sheekh umalna waxaa muqdisho looga diiday isagoo codsaday muxaadaro inuu ku qabto garoonka ciyaaraha injineer yariisow. dariiqooyinka suufiyada ayaana hadallo wadaadka horey u yidhi tabasho weyn ka muujiyey. wuxuu axmed macalin fiqi si kulul u weeraray dowladda federaalka. hay-adda culimmada soomaaliyeed oo culimmada kala duwan ee soomaaliya ay ku midaysan yihiin waxay murankii toddobaadkan taagnaa u muuqdeen kuwo dhinac u xaglinayay sida madaxda dowladda ay ugu muuqdeen oo kale, taas oo axmed macalin fiqi uu sheegay inay sheekh umal la safteen. markana qodobka dibadda, inta la xaqiijiyey 2 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay dalka Pakistan. waxaa la sheegay in qaraxaas uu ahaa nooca dhulka la geliyo ee miinada loo yaqaano. dadka dhintay ee 2 qof ah waa shacab sida la xaqiijiyey. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas, hase ahaatee dad goobjooga waxay sheegeen in uu ahaa qaraxaasi mid dad badan ay wax badan iska weydiinayeen. cidda lagu beegsanayey goobta kama dhoweyn ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan, meel ku dhow Khaybar halka loo yaqaano Pantuqwa ayaana la sheegay inuu qaraxaas ka dhacay. guud ahaanna daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayna wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad kala socoteen shabakadda wararka maanta. inta aan wararkan oo kale dib isku arki doono, amaano Allah.